بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. dhammaan akhyaarta ku xidhan qeybta youtube channelkayga Dalbac Technology Center iyo qeybteeda Facebook Farxaan Dalbac. waxaan jeclay inaan maanta idila wadaago wax cusub oo kusoo kordhay social mediaha, gaar ahaan qeybta Facebook. oo waxa weeyaan qeybta reactionska ayay kordhiyeen, waxay kusoo dareen markaa reaction runtii aada uga hor imaanaya diinta islaamka oo wax dhaqan iyo caado aanu leenahay aan ahayn. reactionkaasuna wax kale maaha, waa qeybtan loo yaqaano reactionska. qeybtaasi kusoo dareen calanka rainbowga. rainbowga waxaa la yidhaahdaa jeegaanta u eeg, jeegaan maaha, jeegaantu saa maaha, laakiin wuu eegyahay. bal maanta waxaan eegi doonaa reactionkaasi muxuu yahay. runtii in badan waan isweydiiyey anigu reactionkaasi muxuu yahay, maxaa loo isticmaalaa. kuwan kala garanaya mid waa like, oo waxaan ka helay love, iyo waxaa aad baan uga sii helo oon jeclaaday qosolka, wixii lagu qoslo, wow, sad iyo angry, taa waan u garanay. laakiin calankan midabkiisu kan yahay xaggana kaga jira sad aragtaan, muxuu yahay isagu. xaggan google-ka ayaan ku qoray balsan u ogaano calankan muxuu yahay, muxuuse ka hadlayaa. what does the Facebook rainbow flag reaction emoji mean, muxuu yahay macnaha ku duugan calankan jeegaanta ah ee kusoo dareen shirkadda Facebook kusoo dartay emoji. waxaa la yidhahdaa stickerskan yaraa isticmaalna, yacni xaaladda qof ka waramay, waxaad ku qosashay oo kale ama waxyaaba noocaas kale ah ayaa emojis la yidhaha ama stickers. and how can I get it, taaba ma jeedna, laakiin muxuu yahay macnihiisu. wuxuu yihi xaggan Facebook has added a rainbow flag to the list of emojis. Facebook wuxuu kusoo daray emoji cusub liiskii hore u jiray. you can use to reactive posts on the social media platform, taasoo aad u isticmaali karta inaad reaction kaga sameyso social media. happy pride sad aragtaan, waa kan haddaba macnihiisu. Facebook buu yihi has introduced a rainbow flag reaction to celebrate LGBT pride month. Facebook wuxuu soo saaray flag ama emoji cusub taasoo lagu dabaaldegay LGBT. LGBT-na waxa weeyaan waa 4 kelmadood oo laisku nabay, waxaanay ka hadlayaan dadkan khaniisiinta ama raggan ragga u taga iyo dumarkan dumarka u taga iyo wax noocaas. pride monthna waxa weeyaan waa bishii iyagu waa bil ay dabaaldegaan oo pride month la yidhaahdo. pride-na waa sharaf, waa bisha yacni isa soo saaraan ay bannaan baxaan iyo waxyaaba noocaas ay sameeyaan xaflado. inta aan iska soo dhaafo, waad aragtaan wakaa calanku iyagoo ku dabaaldegayana wakaa waxaasoo dhan wada khaniis miidhan meesha lasugu keeno dabaaldegaya. what is a rainbow flag, muxuu yahay haddaba. wuxuu yihi the rainbow flag is a symbol of lesbian. rainbow flag waxa weeyaan waa calaamad lesbianka. lesbianka waxaa la yidhahdaa dumarka dumarka u taga. guy waa ragga ragga u taga. bisexual waa kuwan labada dhanba isticmaala, yacni nin iyo naag labada dhanba u isticmaalaa. waa waa nin haddana dee dumarnimo oo xubnihii dumarkan uu leeyahay, oo isagoo nina ayuu haddana naasiyo leeyahay xubnihii dumarka. iyo transgender transgender waxa weeyaan kuwan qaliinka iyo inta waxaa lagu sameeya isagoo naaga inta qaliin lagu sameeyo ayaa loo bedelaa gabadh. LGBT waxay u taagantahay, haddaan ku noqdo LGBT haddaad aragto weliga waa h waa lesbian, g-du waa guy, b-du waa bisexual, t-da u dambeysana waa transgender. waabata xaggaa idinku muuqata dee LGBT. inta haddaad si fiican ugu fiirsataan wataa dee h waa lesbian oo taa u horeysa, g-du waa guy, b-du waa bisexual, t-duna waa transgender. saasaa markaa lasugu soo yaray LGBT looga dhigo abbreviation baa loo sameeyey. marka dad badan oo isticmaalayaan waan arkay calanka oo reaction ku sameynaya. kolley Soomaaliya intaan ogahay uma furna, weliba qeybtan Somaliland uma furna saan ogahay. anugu kolley ima furno man arag,
reactionka cusub. Laakiin adduunka inta kale dee Soomaaliya joogto uu furan yahay, waana laga yaabaa inuu qofku ku khaldamo oo ismoodo wax fiican oo uu isticmaalo. Yacni iyadoo diinta islaamkana meel aanay kaga jirin nin inuu tago iyo naag u tagto toona. Laakiin waa shanta dee adduunka shan bili-aadan ayaa ka jira adduunka. Hadda waxaynu naqaanay inagu nin iyo maxay ahayday naag sooma. Adduunka waxaa ka jira dee 3 LGBT baa ka jira iyo kuwii caadiga. LGBT waa 4 sooma, waa LGBT 4 iyo labadii caadiga ee female iyo male ka naqaanay, lab iyo dhadigii hore. Shantaas ka jira adduunka hadda ay gaaladu soo u dhigayaan. Marka wakaa hadda reactionka aragtana waa reactionka calanka. Marka isku isticmaalin haddaad qof muslimiina tahay oo Ilaahiisa ka baqanaya, ha isticmaalin reactionna ha ku sameyn haddaad aragto, hana ha furan. Xaggan hoosena wuxuu inkastoo aanan doonayn idin soo gudbiyo, laakiin saad u furan karaysa ayaa ku taala, laakiin ma doonayn intaa idin soo gudbiyo. Yani dad qaar ku fasahaadaan baa laga yaabaa. Soomaalida dad walwaalan baa ku jiro badan. Marka qaabka loo furtiyo waxaa soo gudbin mayna insha Allah. Laakiin waa saad aragtaan weeyaan. Calanku waa ka aragtaan haddaba iska ilaaliyaan reaction ugu sameyn calankaana iyo maxay ahaydayaan la isticmaalin insha Allah. Walaalkin Farxaan Xasan Dalbac, channelka YouTube-ka, qaybta YouTube-ka dadka cusubtay subscribe ku samee channelka, like na share video-ga haddaad ka hesho, asxaabtaadana la wadaag. Qaybta Facebook-ka asxaabteedana aad baan u salaamayaa. Video-gan share garee soo dhammaan wada gaadho dadka muslimka ah. Intii de qofkii garanaya, laakiin inta aan ogeyn si insha Allah ugu noqoto maxay ka hortag. Dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.